muxuu madaxweyne Macron ku maagay diinta Islaamka? Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dhawaan shaaca ka qaaday qorshe uu ku doonayo inuu ku meelmariyo sharci adag uu ku sheegay inuu ku xakameynayo waxa uu yeeray muslimiinta gooni goosadka si uu u difaaco mawaadiida cilmaaniga ah. Waxa uu sheegay in qorshahan lagu beegsanayo dhammaan dhaqamada ururada xagjirka iyo kuwa arrimaha diinta adeegsanayo kuwaas oo su'aal gelinaya Jamhuuriyadda Faransiiska sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta dalkaasi. Madaxweyne Macron oo jeediyay khudbad laga sugayay ayaa sheegay muslimiinta ku nool Faransiiska oo laga tiro badan yahay oo lagu qiyaasay 6 milyan inay khatar ugu jiraan inay sameystaan bulsho ka duwan Faransiiska intiisa kale. Macron wuxuu si cad uga hadlay arrimaha diinta Islaamka. Wuxuu yiri Faransiisku waa inuu ka hortagaa Islaamka doonaya inay gooni u goostaan isla markaana dafirsan Jamhuuriyadda Faransiiska. Si kastaba ha ahaatee, taageerayaasha Macron waxay ku doodayaan in qorshuhu uu ku dhawaaqay madaxweynuhu uu yahay mid aanan lagu beegsanin diin gaar ah balse lagu bartilmaameedsanayo dhammaan diimaha ama kooxaha aan qadarinaynin mabaadi'da iyo qiyamka dowladda. Taageerayaasha waxay ku baaqeen in la bilaabo isbeddel lagu sameynayo masaajidda Faransiiska ku yaala, waxayna ka digeen qalalaase ka dhaca duleedka magaalada caasimadda ee Paris oo ay muslimiin badan ku nool yihiin. Talaabooyinkan uu damacsan yahay Macron waxaa ka mid ah in si adag loola socdo ururada isboortiga iyo ururada kale oo ay bulshooyinka isugu yimaadaan oo looga mid dhigo barashada Islaamiyiinta, joojinta nidaamyada imaamyada ee meelo ka baxsan Faransiiska waxbarasho u aada, iyo kormeerka iyo dabagalka dhaqaalaha masaajidda soo galayo ama lagu maalgelinayo.